daawadayaal humaag waa barnaamij maalinle ah oo aanu idinkugu soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya waxaad 24 saac hal mar ka daawataan shaashadan caalamiga ah ee 6 News Somali soo saaraha iyo socodsiyaha barnaamijka waa anigoo ah Cabdixafiid Nuur cid gaar ah uma adeegno oo Soomaali weyn ayaa inoo siman intaan qabiil ama qoys u adeegi lahayna qarankeena oo aan qowlsan ka sheegno ayaa inagala qumanaatay xarunteenu waa xamar xigaalkeenuna waa adinka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناسين داوديال halkani waa 6 News Somali ku soo dhawaada barnaamijkeena humaago aanu idin kugu soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya qodobada aan maanta idin kugu hayana waxa ka mid noqonaya isbitaalka Digfaar oo la xiray sabab la xiriira ka hortagga cudurka dunida ku sii faafaya ee coronavirus waxaan idin soo gudbin doonaa arrimahaasi faahfaahin la xiriirta sidoo kale waxaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa Jubbaland waxa ay ganacsada uga digtay in ay faa'iido ka raadiyaan saamaynta cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 iyaga oo sare u qaadaya qiimaha maciishada iyo sidoo kale qutul daruuriga ay nolosha ku dhisan tahay iyo sidoo kale waxaan barnaamijka idin kugu hayaa Erdogan waxa uu casuumaad u fidiyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo maalmihii ugu dambeeyay la xanuunsanaya cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 waan idin soo gudbin doonaa arrimahaasi la xiriira sidoo kale waxaan barnaamijka idin kugu hayaa culimo u diinka Soomaaliyeed waxa ay aad u dhaliilan isla markaana si weyn kaga soo horjeesteen arrin shalay ka dhacday magaalada Muqdisho taasoo ay ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dawladdu ay joojiyeen dukashada salaada Jimcaha qaar ka mid ah masaajidda magaalada Muqdisho مسؤولين كترسن مامل كهرشبيل أنا وعلى كرانتيني كديب مركي مسؤول كترسن مامل كاسل جاه لعودة كورونا فيروس أو أي مدة لدغ مايان سلام كان شرر أو قريب جلي ديجانا ده مامل كهرشبيل سيدو كله وحان يدين كوجسو جدبين دونا برنامج كهدو برالي كان نقضه بيدبا وحاي إذا مدى بوليس كو إذا مدى سكو جبين قاعد شرع الدهراء لو سو جلي يقضى بدأ سيوك وكلا يام برنامج كيدين كوجسو جدبين دونا هدو برالي كان نقضه عبد الحفيظ نوريان هاي وأمر كلا يهما وتهاي داوديال مركله هدي aan ku bilaabo sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho waxa la xiray inta badan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka Digfaar ee Muqdisho waxa ay sheegeen in guud ahaanba ay joojiyeen qaabilaadda bukaanada imaan jiray isbitaalka sabab la xiriira cudurka dunida ku sii faafaya ee COVID-19 waxa kaliya oo furan qaybta loogu talagalay gurmadka degdega ah gaar ahaan dadka ku soo dhaawacma qaraxyada waxa sidoo kale karantiin la galiyay dhaqaatiir shaqaale iyo howlwadeeno ka tirsan isbitaalka Digfaar oo la sheegay in looga shakiyay coronavirus warar kale ayaa sheegaya in laga yaabo in isbitaalka uu ka mid noqdo goobaha lagula tacaali doono caabuqa coronavirus saddex kamid ah dadkii shalay laga helay coronavirus ayaa ka howlgalay isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho oo hadda loo yaqaano Erdogan وزارة ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ganacsada Jubbaland uga digtay in aysan kordhin qiimaha badeecadaha iibiyaan iyaga oo ka faa'iideysanaya xaaladda uu ku keenay caabuqa COVID-19 Jubbaland ayaa sheegtay in aysan aqbali doonin in ganacsada ay ka faa'iido ka raadiyaan saamaynta cudurkan Jubbaland waxa ay sheegtay in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto ganacsatada qaaliyeeya maciishada si ay uga faa'iideystaan weerarka cudurka coronavirus oo dunida ku hayo waxa ay xustay wasaaradda ganacsiga ee maamulka Jubbaland in maamulka ay diyaar garow ugu jiraan ka hortagga saamaynta dhaqaale ee cudurka coronavirus keeni karo iyadoo ganacsatada ugu baaqday in ay waajib iska saaraan daryeelka bulshadooda madaxweynaha Turkiga ayaa warqad u diray Boris Johnson isagoo u rajeeyay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska inuu si dhaqso ah uga soo kabto cudurka coronavirus
warqadiisa Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sidoo kale tacsi u diray qoysaska dhibanayaashii Britishka ahaa ee ku dhacay coronavirus isagoo rajo ka muujiyay in Britain ay ka guuleysan doonto masiibadan soo wajahday. Boris Johnson ayaa ka mid ah madaxda caalamka ee sida weyn u saameeyay cudurka coronavirus isla markaana maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku jiray isbitaal xaaladiisa ayaa hadda la sheegayaa inay soo wanaagsanaatay. ugu dambeyntiina madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dunida uga digay in la qaado xayiraadaha loogu talagalay la dagaalanka faafidda coronavirus isagoo walaac ka muujiyay in xaaladda ay ka sii dari karto haddii ay taasi dhacdo. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in dalalka caalamka ay ka fuujignaadaan khafiifinta xayiraadaha xataa haddii ay dhaqaalaha dunida saameyn ba'an ku yeeshaan xayiraadahaasi. Spain iyo Talyaaniga oo ah dalalka Yurub oo sida ba'an u saameeyay fayraska corona ayaa haatan labaduba waxay khafiifinayaan qaar ka mid ah xayiraadihii ay ku soo rogeen dalalkooda. guud ahaan dunida waxaa la xaqiijiyay 1.6 milyan oo kiis halka dhimashaduna ay marayso in ka badan 101,000 oo qof. Dr. Tedros Adhanom oo ka hadlayay magaalada Geneva ayaa sheegay inuu hoos u dhac ku yimid xanuunka laga dareemay qaar ka mid ah dalalka Yurub. waxa uu sheegay inay jiraan qorshooyin lagu khafiifinayo xayiraadaha kuwaas oo ay WHO kala shaqeynayso dawladaha caalamka balse ma ahan in si dhaqsiya loogu dhaqaaqo ayuu yiri. dawladda Spain ayaa isu diyaarinaysa in isniinta shaqaalaha qaar ka mid ah waaxaha dhismaha iyo warshadaha ay u ogolaato inay dib u bilaabaan shaqooyinkooda. Spain ayaa jimcihii diiwaan gelisay tirada dhimashadii ugu darneyd muddo 17 maalmood ah taasi oo gaadhay 605 qof sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay tirada dhimashada Spain ee la xiriirta coronavirus ayaa gaartay 15,843 kiis. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sii kordhiyay xayiraadaha saaran dalkiisa ilaa ay 3 bisha May hase yeeshee ganacsiyo yaryar oo xidhnaa tan iyo 12 Maarso ayaa maalinta Talaadada loo ogolaan doonaa in ay dib u furaan meheradahooda ganacsiga. guud ahaan barnaamijku waa naga intaas nabadgelyo. daawadayaal humaag waa barnaamij maalinle ah oo aanu idinkugu soo bandhigno dhacdooyinka siyaasadda sarbeebaha iyo siraha dahsoon ee dunida ka dhacaya. waxaad 24 saac hal mar ka daawataan shaashadan caalamiga ah ee 6 News Somali. soo saaraha iyo socodsiyaha barnaamijka waa anigoo ah Cabdixafiid Nuur. cid gaar ah ma adeegno oo Soomaali weyn ayaa inoo siman. intaan qabiil ama qoys u adeegi lahayna qarankeena oo aan qowlsan ka sheegno ayaa inagala qumanaatay. xarunteenu waa Xamar, xigaalkeenuna waa adinka.